waxaan rabaa inaan ku degdegsado nin sheega waxyaabaha aan doonaya insha Allah hadduu nafta alla igu simo sida ugu degdegsiya badan inaan ku qabto horta waan arkaa inuu hal ceel keli u yahay halka ceelka hadduu jabana aan waxba la haysan oo kale soo ma marka ceel labaad ayaynu ku kordhin doonaa sida ugu degdegsiya badan markaan leeyahay 6 bilood ilaa sanad gudaheed ayaan rabaa ilaa markay u yartahay 30-40 ceel inaan ka qodo meeshan maxay ahayd la yiraahdo Dadaab constituency cali qarsadana meeshaas ay ka mid tahay waana ka qodiyaa insha Allah waxaanu hagaajinaynaa taangigaas ayto aad buu u yar yahay taangi ka aad uga weyn oo meel 4 jibaar meelahaas oo 200,000 oo litir qaadayo oo cala aqal laba inaanu hagaajinaan rabnaa sifa haddana biyaha sayto intaan pipe ku samayno gabar kasta gurigeeda hortiisa gabdho ma maqlaysaa sifa gabar kasta gurigeeda hortiisa ay biyaha saa u furato badalka ay garaangariyo soo garaangarin lahayd oo ceelka u kici lahayd garaangariyo dambe la garaangarin doona ma jiray insha Allah sanadka koowaad ayaan hawsha ku dhameystireenaa biidnillaahi albaari iskuulka waa liiga warramay waan arki doonaa hadda waan mari doonaa waan soo firin doonaa si uu yahay xaaladiisa waan dhisi galaasiyadana waan kordhinay macallimiinna waan keenayaa insha Allah inta macallimiinta dawladda ay ka imaanayaan muddo ku qaadanaysa markay ugu yaraato 4 ilaa 5 macallin oo aniga aan qoro oo mishaarkooda bil kasta aan bixino oo dhalinyaradiina form 4 dhameysay ay yihiin ayaan idin qoraynaa muddada gudaheedana waxaan ka shaqaynaynaa sidii TSC ay noogu soo diri lahayd macallimiinta iskuulka dhexdiisa guriga uga dhiseynaa biidnillaahi albaari may maqashaan ay ku noolaadaan dhulkuna ha nagu yarayna dhulka si fiican weyneeya meeshan ma dawladnimada lagu sheegi dawladda maba tihid haddii chiefna aadan lahayn askarna ay ku joogin meel hadday tahay meel dawlad iyo waddan ka tirsan laazim waa inay astaantii dawladda meesha ay ka muuqataa astaantii dawladdana waa chief iyo askar ilaalinaysa dawladdii nabadgelyadii meeshii iyo shaqaalaha dawladdii iyo shacabka ilaalinaysa waan idin qori chief insha Allah tacaala qarsaday maqlaysaan markaan qoraynana nin fog kama keenayna carruurtiina intaad ku haysateen oo idinkaas la garateen ma idin soo sheegi doontaan kaad leedihiin kana ka bixi karaa xilka kaan baanu meesha geyn doonaa insha Allah ummad kasta waa inay diinteeda ku adkaysataa islaamnimada shay qaali weeyaan wax fudud ma aha nasiib baanu leenahay muslimiin nahay waxyaabaha masaajidka u baahan yahay madrasada tahfiidka kulli wadi soo gudbinaysaan wax weyn baan nagala qabanaya insha Allah biidnillaahi albaari waan ogahay carruurta cali qarsaday inay Nairobi iyo Garissa iyo meelo kale ka akhristaan laakiin markasta la oranayo odayga oo geeli ka dhamaaday loodi ka dhamaatay ariga ka dhamaaday lacag keen fees lagu bixiyo cunug dambe oo college dhiganayo oo fees idin soo doonaya idinka ma jirto anaa bixinaya feeska carruurtaas oo lagu imaanaya waxaan ka tagay ani meeshan kursiga bariga hore 350 cunug anoo sanad kasta oo magaca cidnayto iyo wixii nala halmaalo nagu dhadhow nagu dhaxnool jaamacadaha aan ka bixino oo fuul laga bixiyo oo mid cidoodiba ugu noqon waysan jirin tii iyo tuka fiican baan soo celinayna insha Allah waan ogahay in ay shaqo la'aan ay jirta meeshii UN-ka waan soo celinaynaa sidii horaan ku soo celinaynaa hay'adaha way soo noqonayaan waan soo wada celinaynaa may maqlaysaan shaqada way furmi doontaa way dilaaci doontaa xataa geeljiraha shaqo heli doonaa sidii beri hore ay ahayd AGK iyo G4S iyo wixii lama halmaalo ayay ka shaqaynayeen markaan saas samaynayna cid kasta way iska dhex arkaysaa ma aha halkoo nin oo madaxda meesha jooga intuu reerkiisa hoose keliya caankaasoo nin jeclaysi ugu sameey maya sida uu kala basaalka dab u yahay suu si kala yahay kulli nin kasta xaqiisa uu meeshaas ka dhaxelaya ilaa cadaalad daal sameeyeen wax madaxtinimo adiga aad tahay ma jirto madax awal shay waa cadaalad wax la yiraahdo ummadaada adiga ku fiirsanayso oo maxay ahayd xilkan ku dhiibatay oo ku seexanayso waa inay cadaalad ka heshaa ma aha inaad tiraahdo meel hoose iyo meel caynkaas oo kaliya ballan baan iga qaaday bidaayada waan ogahay meesha dhakhtarlaan inuu yahay soo dhakhtarlaan maaha war isbitaal miyaad haystaan isbitaal miyaad haystaan magacaadu muxuu adigu axmed nuur ma isbitaal baad haystaan
وأنا بس محي هذا الديسبنسرية ديرتنا وعن كهجة جدا الناس بتالوين وحتى قلنين القصة مايو حتى بالعان تكوي عادي ولا لوين لا يقرأ عرض لا يسوى صاروا أو محي دكتور روا وين أي جوجان مال كستو أو ديفيشنه هل بنوجه هجاتينا أو سطال عين كاسو كله سبب مغليسان سبب مغليسان وما هتسنتين عرورة الجامعة ونجينا سفي عما وحول قبنا الناس سفي عروس برموسان جامعة جودها دي بدأ أدبا نودري شربري هوري دي بدأ ونودري شربري هوري وانبلاب ان arrintii ahayd si fiican baan u direynaa waxaan rabnaa muddo yar gudaheed caruur ku dhalatay mise ku soo kortay mise reerkooda iyo beeshooda ay degan yihiin meesha la cali qarsade inay ahaadaan dad aqoon fiican leh oo dib ugu soo noqdaan dhakhaatiir iyo injineere iyo maxay nurses iyo RCOs iyo waxaasoo dhan inay noqdaan baan annaga maartay aan diyaar u nahay insha Allah oo maartay adeega bulshada ay noo fududaato markaan dhalinyarada aanada ay ku badan yihiin macallimiinta in wax alla waxaan u baahan oo dhan baad ka dhaxili karna mujtamaca anaga ay noo fududaanaysaa ta u dambaysa midda ka horeyso waxaan idiin sheegi odayaasha 65 da'doodii gaadhay iyo wixii ka weyn noo soo diiwaangeliya dowladda system baa jira lacag loogu soo dira bil kastaba oo cash transfer la yidhaahdo telefoonadooda iyo macluumaadkooda noo soo gudbiya cabdinuur axmed nuur soma axmed nuur kaasha caruurta wax soo barteen oo remeeshane listigaasaan rabaa sida ugu degdegsamid in la soo gudbiyo faylalka laisku hagaajiyo markii la isku hagaajiyo aan hubsanno inay cali qarsada ka faa'iidaystaan arrintaasayto oo hadda soo socoto waxaa wehelisaa aytaamta caruurta agoonta iyagana xaq saasoo kale ay leeyihiin oo lacag loo soo diri bil kastaba gabadha xataa hadduu intuu nin ka dhinto nin kale uu guursado ninkii laba caruur ay leedahay caruurtu barna abbood nool iyo barna abbood dhinteen familkaas oo dhanba xaq bay u leeyihiin iyagana inay ka qayb qaataan arrintaa iyada oo lacagtaas intuu loo soo shubo mar kastaba iisoo dhammee iyo hagaaji ilalkaaryada iyo kulli baa laga fiirinaya da'da hebel baa intaasu jiraa lama odhanaya dawaan lagu lifaaqay ilalkaarka waxyaabahaasoo dhan ba iga shaqeeya adiga waana kula soo xiriirayaa waxay gabadhii xalimo mahad